Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan walaalaha Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan. Waa anigoo ah Macalin Shariif. Videogan wuxuu ku saabsan yahay barnaamij magaciisa la yiraahdo Discord oo da'yartu aad u isticmaasho. Barnaamijkan waa barnaamij khataro fara badan kala soo gudbanaa kara carruurtaada. Kansalkan aan ku noolnahay ee la yiraahdo Bonesset Council iskoolaadka waxay u direen dukumiinti ay ku sheegayaan khataraha uu u leeyahay carruurta. Waxay kaloo ku wargeliyeen iskoolaadka in waalidka ay uga digaan in carruurtooda ay isticmaalaan barnaamijkan. Barnaamijkan oo magaciisa la yiraahdo Discord saan horey u sheegay waa barnaamij da'da ugu yar ee loogu talagalay in la isticmaalo ay tahay 13 sano. Laakiin waxaa la ogaaday in carruur badan oo da'daas ka yar ay isticmaalaan barnaamijkan. Khataraha barnaamijka uu leeyahay waxaa ka mid ah in canugaagu uu xiriir la sameyn karo dadka waaweyn iyo dad aan la garanaynin. Waxaa kaloo ka mid ah in canugaaga marka uu isticmaalayo barnaamijkan lagaa dhageysan karo meel kasta. Wax kasta oo ka dhacayo gurigaaga meel kasta ayaa laga dhageysan karaa. Qof kasta ayaa maqli kara. Barnaamijkan carruurta waxay u isticmaalaan inay carruurta saaxiibadooda kula sheekaystaan. Laakiin wuxuu leeyahay seerfaro. Qof kasta seerfar ayuu samaysan karaa. Seerfarada qaarkood aflaan fadara ah ayaa la soo geliyaa iyo waxyaabo aan ku habboonayn. Waxa kaliya uu weydiinayo canugaaga barnaamijkan waa inuu leeyahay email. Emailkuu gelinayaa kabacdi wuxuu weydiinayaa da'diisa inuu sheego. Cunuga marka da'du doono sheegi karaa. System ma jiro lagu qeexi karo ama lagu ogaan karo cunuga da'diisa saxda ah. Cunuga marka da'du rabo sheegan karaa. Marka da' weyn hadduu sheegto canuga barnaamijka waxa uu furmaya wax kastoo xun. Wax kastoo xun cunugaaga wuu arki karaa. Wuxuu kaloo la hasaawi karaa dadka waaweyn. Laakiin isagu wuxuu u haystaa inuu la sheekeysanayo saaxiibadiis marka uu game ka la ciyaarayo khaasatan. Carruur badan ayaa la kulmay oo barnaamijkan isticmaala. Waalidkoodna waan ku wargeliyey. Iyagana waan ugu sheekeeyey khataraha uu leeyahay barnaamijkan. Fadlan haddii carruurtaada barnaamijkan ay isticmaasho, barnaamijkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Discord. Waa barnaamij khataro fara badan leh. Adigana lagaa dhageysan karo. Carruurtaadana wax xun uu mataqaanaa ka daalacan karo halkaas. Haddaba haddii barnaamijkaas carruurtaada ay isticmaasho fadlan isha ku hay. Laakiin guud ahaan waa muhiim inaadan siinin carruurtaada taleefan. Mar haddaad taleefan siinayso canugaaga waa inuu ahaado cunug mas'uul ah oo kala garanaya waxa ay marka ay tahay inuu kuu soo doonto waano ama wax sheeg uu kuu soo doonto marka ay tahay inuu ogyahay. Laakiin canug yar oo primary dhiganaya ama year 7 dhiganaya mobile ha siinin. Waa adigoo yiri canugaaga badweynta dhexdeeda ayaan ku keenayaa. Waxaana kaa doonayaa inaad soo dabaalato oo aad imaado xeebta aad imaado adigoo bad qaba. Taasna way adag tahay. Macquulna maaha. Fadlan canugaaga taleefan ha siin. Taleefan haddaa siisana hubi in canugaaga aadan siinin taleefan internet leh. Taleefan aad kala hadli karto oo basiga oo aad kala hadli karto kaleeto si haddayba noqoto inaad taleefan siinayso. Sidoo kaleeto haddii guriga uu ku yaallo shaashad ay ku taalo ama computer uu ku yaallo dhig qolka fadhiga meel laga wada arki karo. Waxaa jirta arrin hadda ka hor laga yaabo inaan inla wadaagay oo ahayd waalid aan Soomaali ahayn ayaa ii yimid. Wuxuuna ugu yiri waalidkan cunugiisa macallin ayaan u ahay. Cunugan da'diisana waa 11 sano jir. Waalidkii wuxuu ii sheegay inuu haystay computer laptop ah. Laptopkaasna xogaa wuu ka cuslaaday. Markaas wuxuu yiri maadaama ugu cuslaaday waan ku shaqeyn jiray meelaan iska dhigay. Mid cusub aan soo gatay. Maalmo ka bacdi ayaan ka bacdi dadaan qaraabanahay ay soo wacay waxay u yiraahdeen waa ku imaanayna.
marka waxaan ku dhaqaaqay inaan guriga hagaajiyo qolkii canugeygana waxaan ku dhaqaaqay inaan hagaajiyo qolkii anuu hagaajinaya sariirta hoosteeda waxaan kasoo bixiyey laptopkii markii aan furay laptopkii waxaan ku arkay aflaan fadara ah markii aan sii eegay cunugii la wareystana wuxuu ii sheegay inuu isticmaalayay primary asagoo ku jira ilaa primary u dhiganayo taas macnaheedu wuxuu yahay 10 sano 9 sano asagoo jira inuu waxaan fadaradaa fiirsanayo cunugaas asaga ah wejigiisa dhan wuxuu u noqday findoob oo cunuga wuxuu bilaabay inuu baaliq noqdo asagoo da'diisa ka yar waxaasna waxaa keenay aflaanta fadarada ah uu fiirsanayo waalid Soomaaliyeed canugaaga teknolojiyada daa u dhiibto waa muhiim inaad ka warqabto oo aad eegayso waxa uu ku sameynayo taleefonna haba siinin haddii da'diisa ay yar tahay ama primary ha dhigto ama secondary year 7 ha ahaado cunugaaga ha siinin ma qiyaasi karaysid inta caruura oo aan garanayo oo aan face to face u garanayo oo iskoolka looga soo biriyey video ay ku share gareeyeen WhatsApp waxyaabo ay internet ku share gareeyeen dartood looga soo biriyey ma qiyaasi kartid marka waalid canugaaga waa inaad si fiican uga warqabto wax kasta uu ka isticmaalayo teknolojiyada fadlan gaarsii waalid kasta waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu